Labisyada aad shaqada ku tagi kartid qaybtii koobaad oo Motinho Lifestyle-ka soo dhawaada. Waxaan samayn doonaa dhowr labis oo kala duwan oo goobta shaqada ku tagi karto. Maadaama goob muhiim ka shaqeynayso, waxa fiican inaad u ekaato goobta ka shaqeynayso. Soo labisyan kala duwan soo qaadanayno waxa weeye waa kuwa kamid ah qaybtii koobaad labisyada aad xiran karto goobta shaqada. Labiska ugu horeeya ee aan soo qaadanayno ee marka aad shaqada tagayso ama soo kale goobaha shaqada aad ku tagi karayso waxa kamid ah labiskan classic-ka corsuit midabku doonaha la ahaado just waa corsuit ama single suit ha ahaado ama soo kale suit jacket-ka caadiga ah ahaado soo kalena classic oo labiska design-kan camal ah sababtu waxa weeye maadaama shaqeynayso oo goob muhiim ah joogto waxa fiican dressing code-ka ugu wanaagsan aad ku labisan karayso oo leh title-kaaga iyo soo kale shaqada aad ka shaqeynayso. Labiska labaad ee aad shaqada u xiran karto waa labiska noocan oo kale ah. Waa labiska suitna gaadhin classic-na ka tagay ee corporate outfits-ka ka midka ah. Labiskana aad buu wanaagsan yahay, waa labis sumcadiisu wanaagsan tahay, waa labis xilliyo kala duwan xiran karto, goobo kala duwan aad ku tagi karto, sidoo kalena hawlo kala duwan aad ku qabsan karto. Aad baan u wanaagsan yahay labiskan, waa labis ka degan, sidoo kalena aad u wanaagsan. Labiska saddexaad classic ayaan ka dhiganaynaa. Waan ka guuranaa dhammaan labisyadii hore oo dhan. Kan waxaan ka dhiganaynaa surwaal jeans ah, soo kalena shaadh madow iyo kaba classic ah. Dhiid ayaan ka xidhanaa. Waxaan noqonaysaa qof shaqo, soo kale xarago, soo kale xitaa nasiimo oo labiskan kuma haynayo, kuguma dhegsana, soo kalena kuma dareemaysa ciriiri.